السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا القناة كأيجي فادنا أصحابي كسر نقد ونكسن وحين نوصل نقضي قيسوين يعني كشي كين شري يعني في إنجليز كم رمالها كسر دعوة أما في فرنسيس كم كسر دعوة أنا يدين صوت ترشمي شري مركا ما أنت متمنى هيا كوسابسن وحن ما أنت أدون كم أرتكسر هذا مركا هدي هذا تقول نقول عصب تحي وأما عد دور مرة نقصه بيرتاي وحنقولها ويلكم هذا تعيش هاي قيسوين كان إيه وحياة بدن كسابسن قيسس ك أدونك waxa maad ka dhac wax kasta meesha waa lagu dhex waraaqa waa suuga walaal anyway waxaan ka wadaa xas hadda doonaysid maartay inaad hore u sii daawatid waxyaabahan oo kale isku soo noqotid fadlan subscribe kalmada ma karo laakiin waad fahmaysaa subscribe garee please anyway maanta waxaan doonayaa videogan waxaan doonayaa maanta inaan inoo wada faa'iideeyo kulligeen dadkana daawanaya dadka meel kasta aad joogtaan waad ogtihiin maanta coronavirus baa socda ilaahay naga qabto marka waxaan doonayaa qisadan inay noqoto mid maaragtay daad qiso oo kale sheekadeedii noqoto laakiin waxyaabo badan baa maaragtay ku laalaaban ku dhex jira aan doonayaa inaan adigna idin soo gudbiyo saa idinkuna maaragtay uga faa'iidaan marka please waxaan leeyahay videogan please fadlan sii share gareeya anigu usually ma yiraahdo share gareeya videogan waa very important waxa weeyaan mid muhiim ah marka waxaan doonayaa fadlan waxaan idiga codsanayaa please dadkana taageera please idinkana maaragtay videogan marka daawatan idinkuna sii share gareeya qofun bay maaragtay anfaci doontaa waayo waxaan ogahay in Soomaalidu ay reero badan ay u dhexdhexeeyaan oo ninku markaa ama lahaan karo laba xaas mid aan uga dhimid ogba waxyaabahaas qol marka sheekadani waxaas oo kale marka yes hadalkan ku dheereynay wax weeyaan waa muhiim okay sheekada ay noo bilaabo sheekada wax weeyaan mid aan android newspaper ka akhrisaday waxay gabadh reer Ingiriis weeyaan marka aan Ingiriiskan deganahay marka reer gabadh ba weeyaan marka soo qortay oo doonaysa inay la wadaagto arrinta ay ku dhex jirto maanta oo because adduunka maartay coronavirus markuu ku batay waatan adduunkii qof kasta la yiri gurigiisa joog marka gabadhani situationka ay ku dhex jirto xaaladda ku dhex jirto waa xaalad maxay ahayd yar adag laakiin iyada isgelisay marka dadka doonaysa in la wadaagto usually maaragtay markaan sheekooyinka idin soo gudbiyo documentary iyo sawirro qofkii dadkii wax ku saabsanaa baan idin soo gudbin jiray saad maaragtay way qurux badan markaad maaragtay videoga daawanaysid inaad dadka aan laga sheekeynayo wajigooda aragtid laakiin unfortunately maaragtay videogan maanta kama arki kartaan wax sawirro ah waayo qofkii sheekada ku saabsan tahay ay soo gudbiyay qoraal un bay ahayd wax maaragtay video laga soo duubay ama qof sawirkiisa lahayo dadkii ku saabsanaa oo ma jiraan markaa videoga wax sawirro ma jiri doonto aanu bay arki doontaan sorry sheekada saas ku bilaabanaysaa waxa weeyaan gabadh baa soo qortay sheekadeedu waxay tiri waxaan doonayaa inaan idin sheego xaaladda aan ku jiro lockdown-ku wuxuu keenay iyo dhibaatooyinka maanta qoysaska haysata qoysas badan marka iyada gaar ahaan marka gabadhan waxay tiri aniga iyo maxay ahayd ninkaygu waxaan isqabnaa ilaa wax 20 sano ama 15 sano meelahaas ka badan bay isqabaan marka waxay tiri markaan iskuursanayba 5 sano ka bacdi ninkaygu xanuun buu la soo jiibsaday xanuun ah inuuna maxay ahayd maaragtay nolol fiican ku noolaan dib dambe ugu noolaan inuu xanuun markiiba uma dhimanayo lama odhan maaragtay sida kansarka oo kale inuu waqti baa ku harsan laakiin waxa weeyaan waqti wax weeyaan marba uu kusoo noqonaya xanuunkan waxa la yiraahdaa chronic disease waxaas la yiraahdaa marka xanuunkan waxa weeyaan mid naafa ka dhigaya laakiin haddana noloshiisa maaragtay ma dilayo oo wax weeyaan wuxuu og yahay inuu xanuunka weligii la noolaanayo uunan noloshiisu sidii ay marka hore ahaaneen marka 5 sano markay saas ay say noqotay labadoodu waxay go'aan gaadheen inayna caruur dhalin marka labadan qof waxay yihiin waa bilaa caruur ma haystaan iyadana ninkeedii maaragtay maadaama xanuunsaday waxay noqotay inay ninkii maaragtay keer garayso oo isaga maaragtay uu noloshiisa ay ilaaliso laakiin waxay tiri sanado 10 sano markay kasoo wareegtay anigii waxaan dareemay in maaragtay inaan ilaalinayo uu ninkiina uu noqday selfish laakiin qof maxay ahayd isagu iska fikiraya aroortii markaan soo kaco aan ku yiraahdo how are you wuxuu maanta non complain gareynaya marka anyway noloshii waxay noqotay oo kale laba qof oo maaragtay waan fahmaya because anigii Jamaal noloshan ku jiro inkastoo ay aragtay haddana waan isku faraxsanahay waad dareemaysaa qofka maaragtay inaad weli xiiseynaysid ama aad ka niyad jabin oo kale marka waxaan tahay tusay qofku markuu ilaa 10 sano marka la isqabo oo kale u malay anagu weli 10 sano isma qabno laakiin waxaan dareemi karaa inay ka caajisay oo kale ninkan maartay maalin kasta ilmahaagii maahay waa ninkaagii laakiin ay maanta oo dhan ninkii niyad jab ku dhacay gabadhii anyway
niyadjabkii wuxuu keenay inay noloshaas la qabsato oo aanan maaragtay ayna faraxsaneen laakiin haddana shaqadeediiba waxay ka baratay nin bay ka baratay oo meesha ay ka shaqayn jirtay hooyadii buu u iman jiray waa meel dadka waaweynka lagu hayo marka nin baa hooyadii soo booqan jiray hooyadii bay iyaduna ay keergaran jirtay inankiibaa inantii ku dhawaaday wiilkii hooyadii maaragtay u iman jiray gabadhana ay hooyadii meesha ay ku ilaalin jirtay unbaa labadii qof isku soo dhawaaday maalinta dambe wuxuu sameeyey inankii waa jeclaaday gabadhii marka iyaduna kolley way iska jeclaatay waayo dee maxay ahayday nin maaragtay kaarsiiya ama si kale u eega ama waxyaaba si kale ula sheekaysta maaragtay de in badan baa ugu dambeysay marka inankii wuxuu sameeyey maalin qurun buu shaqadiisii markuu ka yimi wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan isbarano flower badan buu keenay iyadiina kolley se sheegayso ninka way jeclaatay maadaama maalin kasta maaragtay isla sheekaysan jiray isaguna shaqada ugu iman jiray way isku soo dhawaadeen anyway halkii bay sheeko ka bilaabeen sheekadii way dheeraatay labadii qof waxay tiri waan isfahanay ninkii waxay tiri waxa uu sheegay xaaladeedan sheegay waxaan ku yidhi ninkaygu waxaweyaan nin badan baa isqabnaa ninkaygu ma xanuunsanayaa noloshaasaas weli ku jiri doonaa isma bedeliyo marka xanuunkan uu qabo waa xanuun difaac xagga difaaca jirka maaragtay de low ah waxaweyaan very weak weyaan immune disease waxsaasa buu qabaa difaaca jirka maaragtay waxaweyaan waxa ma qabanayso marka sheekada waxaan doonayaa inaad si fiican u dhageystaan please ila jooga waayo hadhowta waxaan ka hadli doonaa muhiimadda ay leedahay maaragtay in guryaha la joogo marka please video waxaan doonayaa inaad maaragtay ila joogtaan oo aad fahantaan waxaan ka wado waayo muhiimadda waxaan tusayaa idinkuna aad ka hadli doontaan raygiina aan ma jeclahay maaragtay inaad ka dhiibataan gabadhii waxay u sheegtay ninkeedu inuu maxay ahaday uu xanuunsanayo marka wuxuu yidhi okay ninkii kale ay dabadda iska barteen uu aqbalay sheekadii waxay socotay 4 sano gabadha markaa ninkeeda ay 15 sano ay isqabaan wixii ka badanba guryo badan bay isla leeyihiin oo ay kireeyaan iyaduna markaa maalintii bay shaqaysaa gabadhii waxay tiri muddo ka bacdi markaan cabaar aan si fiican maaragtay aan soo sheekaysananay waxaan damcay guri mid ka mid ah guryahaydii baa banaanaaday marka gurigii reerkii deganaa baa ka baxay waxaan damcay inaan ninka aan la sheekaysto markaa inuu guriga soo dego si aan aniguna guriga labaad maaragtay aan ugu tago aan guriga labaad samaysto marka sheekada waa fahanteen qoftani 2 guri bay leedahay 4 sano markaa gurigii ay lahayd bay ninkan tiri waan kaa kareynaya kamay kareyna waa ninkii waa gurigeedii labaad yadaa degaysaa laakiin ninkeeda waxay ku odhanaysaa because waa ninkan waa kan curyaankooda guriga jooga oo xanuunsanaya isagu waxba ma kala ogaa waxay ku tiri reer baan ka kareeyay gurigii de isagu naagtiisa maaragtay ama xaaskiisa wuu aaminayaa waayo waxba dee waxba say sheegayso waxba ma kala ogaba ninkani marka waxay tiri ninkaygana waxaan ku yidhi reer baan ka kareeyay laakiin waxaan ka kareeyay ninka aan la sheegaysto gurigii baan degnay gurigii bay sharaxday marka waxaad odhanaysaa goormay gurigan tagtaa labaad marka gabadha xasuusta guriga waxay ka shaqaysaa marka xasuusta gabadhan waxay ka shaqaysaa meel dadka waayeelka lagu hayo marka way degan yihiin ba marka 24 hours dadkaas maarta care bay u baahan yihiin marka ninkii waxay ku tiri ay isqabeen waxaan doonayaa inaan habeenkii ka shaqeeyo hadda oo aan ku darsado saacado ilaa 2 habeen 3 habeen si maarta lacagta inuu kordhisano marka ninkeedu waxay ku leedahay waan shaqeynayaa shaqay ku maqan tahay marka ogaada shaqaday ku maqan tahay shaqo kuma maqana ninka kale marka 3 habeen la soo joogtaa maalintiina waa ama shaqeynaysa oo shaqada hore ka tagaysa ninkeedii okay buu yiri isma laha maartay wax kale damacsan tahay marka 2 habeen ama 3 habeen ay ku darsanayso weekii ay meesha ay leedahay ka soo shaqeynaya ninka kale la joogtaa marka gurigan waaba gurigeedii iyada sharaxatay wax kasta maartay iyada samaysatay marka ninkan 4 sano bay nolosha kula jirtaa ninkeediina maalintii bay la joogtaa iyo habeenkii dawakaasoo kama qasna ninkan xanuunsanaya ay isqabaanba ninkan labaadna guriga weliba ayadu leedahay iyadii ninkeed isla leeyihiin kaasay kula ay la qaybsataa ninku halkaas u degan yahay laakiin halkaas iyada ugu tagtaa marka 4 sano iyagu saa ugu jira waxay tiri xaaladda baa timi coronavirus u bilaabmay coronavirus marka waa tan lockdown dadkii lagu sameeyay yiri xaafadaada kama soo bixi kartid waad joogaysaa marka waxay noqotay ninkii gurigeedii keebay doorataa de markiiba waxay tiri waxaan doortay ka ninkayga oo de ninkayga khasaba meel kale hadda iskuma soo xiri karo waayo kama tegi karo de waa sharci waxa weeyaan waa lala yaabaya sirteeda dibadda soo baxaysa marka waxay noqotay kii maartay ninka de ay isqabeen inay guriga isku soo xidho oo halkaa ayna kasoo bixin waxay tiri 2 week waan adkaystay 2 week
saan u adkaysanay waa adkaysan kar waayey waxay tiri wiigii ku xigay 2 week markaan aan xarisnaa marka waxay tiri waxaan inta labada week waxaan ka naxay ninkayga oo waayo xanuunka hadaan soo qaado oo aan qaadsiiyo ninkayga hore uu dhimanaya waxay tiri xanuunkii ku dhacaa buu la jiifsadaa marka noloshiisa bay ninkan way dili kartaaba ilaa ka sokow xanuunka hadii ay dabada ka soo qaado oo ay u timaado oo ay ninka ama meel kale ka soo qaado xanuunka ninka uu dhimanaya taana way og tahay marka waxay samaysay markii 2 week ugu horeysay waxay dareentay guilty bay dareentay waxay tiri waan joogay waayo ma doonay ninkayga inaan dilo de xoolo badan bay isla leeyihiin agtan marka saad u aragtaa ma garanayo laakiin idinku bal idin sheega hadhowto halkan igu soo qora sidaad maarta xaaladan u aragtaan hadhowto anyway sheekad ma dhabaan marka ninkan waxa ma kala oga ninkeeda bali joogtaa waxay tiri markii dambe 2 week markaan marayo ninkii maaragtay de way dibsatay xaafadii maaragtay ku xidhnayd ninkii kale tabaysa waxay tiri waxay samaysay markii dambe ninkii ay la sheekeysanaysay waxay tiri waxaan doonayaa inaad noo noqotid ninkan wax noo soo adeega marka waxaan odhanayaa saa ku arko de shopping ma soo qaadaya qofba xagga hoose noogu keenaya shopping marka normally dad ba ku keenaya laakiin yadu online waxba kama dooranay ninkan kale la sheekaysto baa alaabta u keena markii dambe waxay damacday inay tiraado aniga tagay dukaanka waxa ma laha online kana shopping sameeyno waan joojinay anyway shoppingkii waxay samaysay ninkii markii dambe waxay tiri ninkeeda waxay ku tiri sansi ma aha aniga hadda marka shopping tagaya shopping baa inoo soo sameeyay shopping intay ninkeeda ku tiraado waan ku maqnahay ninkii kale xaafadii kale tagta xaafadii kale markay ku maqan tahay ninkii bay de marka maxaa sheekada maxay ku tusaysaa sheekadan waxa weeyaan naagtana inay selfish noqotay oo ay ninkeeda ka fikireen oo intay dabada u baxday nin kale tagtay haddaba ninkaasi kale ay u hooyinayso oo ay guriga kale tagayso xanuunku hadduu isaguba yaa yaqaana meeluhu marmarayo ilaa hadduu dan irresponsible weeyaan isaguba meelahaas iska marmaraya uu xanuunka soo qaado oo iyadu qaatiyo iyadoo ninkeeda qaatiso way og tahay ninkeedu inuu daciif yahay xagga maaragta xanuun ahaan maaragta uu daciif yahay oo dadka coronavirus uu dilayo uu number 1 yahay waayo coronavirus dadkan maaragta wuxuu dilayaa qofka haddaad markii horeba aad xanuun leedahay oo kale oo aad markii horeba aad sakaraad tahay ama xanuunsanaysid ma adkaysan kartid laakiin maxay naagtani way og tahay marka waxaan sheekadan waxaan ka wadaa videogan daawada videogan waxaan tusaysaa markaad meelaha tagtid qof barkuu hindhiso oo weliba gacanta afka saarin ood meelaha maaragta iska fadhiisataan makhaayadaha nimankaa weliba Soomaalida u badan qof adigoon ogeyn oo iska sheekeynaya baa qof baa meel agtaada ka hindhisaya hindhisadaas waxay gaadhaysaa meel fog bay gaadhaysaa xanuunka saasaa lagu soo qaadaa marka muhiimka ay waxa weeyaan gurigaaga la leeyahay u joog waxa weeyaan waa si aadan dadkaasoo kale la kulmin qof kasta marka gurigiisa ku joogo qof kasta gurigiisa ku hindhisaya marka wixii ma faafinayo marka sheekadani waxaan doonayaa in idinku fahantaan niman badan baa haddii doonaan xaasas badan leh oo u kala warwareegi kara ama adigu faamigaada oranaysa waxa ma laha ma baxaafid baan tagayaa xanuunkan waxa ma laha dhibaato ma laha sida dad badan baa maarta waxyaabahaas aaminsan marka sheekadan waxaan doonayaa muhiimka ay leedahay in aad ka fikirtaan haddii adigu shakhsiyadaada maaragtay aadan xanuunsanayn oo aadan daciif ahayn qof kale oo faamigaaga oo ku qaali ama caruurtaada aabahood gabadhaada ayadood awowgood unbaa guriga jooga marka adiga qofkii adigu marka waa inaad mas'uuliyadda isa saartid aad tiraadid dadkan anaa ka mas'uulo kale isaas ka dheh waa markii ugu horeysay aniga life-ka aan dareemo inaan dadka kala badbaadin karo oo kale haddana anigu xanuunka qabo oo aan selfish maanta noqdo waayo ogow xanuunkan dadbu intuu ku dhaco ma xanuunsadaan marka isma oga inay qabaan laakiin way faafinayaan xanuunkii dadkii ease bay u qaadayaan waa 3 nooc buu xanuunkan dadka ugu dhacaa waa qofu in yar intuu cabaar 10 cisho la qufac iyo maxay ahayd maxumad iyo uu ka baxaa hadhowto marka qofkii uu ka bogsadaa qofna dadkana waa kuwa sakaraadka oo hospitaalka marka la dhigo ilaahay u naxariiso dadkan badan waa kuwan dadkii wada dhintay qaar intooda badnay waliba Soomaali badan baa u dhimatay Ingiriiska ilaahay u naxariiso dadkii oo dhan maaragtay dadkii de sida waliba faamigooda aan iman iyo dhakhtarka aan la joogin marka dadkii daciifka ahaa baa number 1 horta dhimanaya dad kalena qofka kalena xanuunkii wuu qaaday laakiin isagii ma lama jiifsan ma quficin wax calaamad oo ka muuqan ma jirto wax calaamad oo ka muuqata ma jirto qofkii marka muxuu sameeyaa wuxuu isleeyahay waar anigu caadi baan ahayo waan caafimaad qabaa laakiin meelaha markuu marmaro hadduu hindhiso iyo hadduu qufacoba
ama uu gacmihiisa meelo kale ku sitaa taabso dadkii buu qaadsiinaya marka ka fikir adiga markaad qaadsiisid isma ogid hadda inaad dadku faafinaysid qofkii dad baa agtaada dhow oo ama aad taqaanid ama aad aqoon oo daciif ah wallahi horey ka seexanayaan maxaad markaa samayn kartaa ismana ogid ka waran marka intaad taa samayn lahayd qof kasta qofkiisa maaragtay dhe dadkiisa ka fikiro guriga jooga waayo ma ogin qof kasta horta dee wuu dhiman doonaa wayn ognahay laakiin waa markii ugu horreysay adduunka waxaan maaragtay anigu la kulmay dad badan la kulmaan marka sida naagtan oo kale ha noqonina intay lacag ka fikirayso iyo iyada shakhsiyadeeda iska fikirayso bal maanta ninkeedii waxay ka dooratay inay nin markii hore horta nolol bay ku jirtay khiyaama markiiba horeba haddana waa tan ninkeeda maaragtay u badheerdhay inay iska wareegto oo marba xaafad tagto nin maaragtay ay u tagto gurigeedii labaa tagto oo ay ninkan ayna ka fikerin waxayba doonaysaa anigu waxaama siri inuu easy ku dhinto oo uu xoolahan oo dhan uga dhinto hadhowtana ninkan hadhowta ugu wareegto marka commentka halka hoose igu soo qaray idinku saa u aragtaan bal wax ma aragtaan khaladka meesha ka dhacay marka inagaba taas kol maartay dad baa ku dhici kartaa marka inaga inta badan waxaan u arkay Soomaali badan baa oo laga qeynoo leeyahay maartay maqaayadii baa furan xagga dambe fadhistaan waxyaabo badan marka dadkaas maartay waxaan doonayaa anigu videoga dadkaas aan ula jeedaa dadka saas taqaanaan sheekadan maartay dadunta la share gareeya marka aniga sheekadan maartay waxay ku tusaysaa dad badan baa adduunka maanta jooga qeyl mas'uul ah oo dadkoodii ka naxayn inkastoo xumanaya naagtan maartay haddii walaalkeed ahaan lahaa ama aabaheed ahaan lahaa ama inankay dhashay ahaan lahayd saa uma fikirtay unfortunately wuxuu noqday ninkeedii buu noqday markaa oo ay dhibsatay markaa kama naxayso marka walaalayaal waxaan leeyahay saa ha noqonina markasta mas-uuliyad isa saara ka fakara dadka aad la degantihiin I know hadda waxaan maqlay maalin dhoweed baan documentary baan daawanay oo sida maartay Dubai baa la xiray Dubai ka waran waxaad online baad ka dalbanaysaa sida aad dibadda u bixlayd bad waxa fasax baa lagu soo diraya online baa lagaaga soo diraya booliiska ku soo fasaxaya 15 minutes 15 daqiiqo baad leedahay intaad guriga ka baxaysid aad diyaarinaysid waqtigaad meesha aad tagtay iyo meesha aad soo noqotay wax kasta la socda markaas nin baa booliiska la hadlay mas'uul wuxuu yiri waxaan doonayaa in xaaskayga labaad soo booqdo waa loo diiday booliiska Dubai way u diideen marka taas waxay ku tusaysaa xubiyaan inta meesha aad la joogtid maartay rabshadaad la haysid ama wax haysid meesha aad ku ekaato meesha aad joog marka videoga waxaan doonayaa maartay inaad idinkuna sii share gareysaan oo aad dadka maartay la wadaagtaan muhiimadda ay leedahay inaad gurigaaga joogto waayo qofka xanuunsan ma ogaan kartid iyo qofka dibadda xanuunsan aad marmarisid meelahaas iyagu horta dadka xanuunsan dibadda marmaraanba maaha anyway videoga yaan ku dheerayna waxaan leeyahay saa iyo nabadgeliyo idinkana ha ilaawina xagga hoose kusoo qora saad u aragtaan sheekada rayigina dibta marka waxaan leeyahay kulan dambe asxaabta insha Allah waxaan rajeynayaa marka waqti helo maartay inaan idiin soo dedejiyo qaar kale salaam calaykum